xafladda furitaanka sanad dugsiyeedka 2017-2018 ee dugsiga hoose dhexe Quraadheer ayaa lagu qabtay xarunta dugsigaasi ee magaalada Hargeysa. Ugu horeyn xafladda waxaa ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Quraadheer Khadar Ibrahim Cabdillaahi. Maamuluhu wuxuu u mahadnaqay wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland sida sanadkan ay wasaaraddu u joojisay isla markaana ay ula dagaalantay qishka imtixaanaadka iyadoo sanadihii u dambeeyay ay isa soo tareysay arrintaasi. Isagoo maamuluhu sidoo kale u mahadnaqay dhammaanba waalidiinta iyo marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay xafladdaasi lagu guddoonsiinayay jaayisadaha kala duwan ardayda. Maanta waxaanu diyaar u nahay xafladdii sanad dugsiyeedka dugsiga Quraadheer oo muddo dheer aynu rajaynayay inaan qabanno komishankiina naga soo dhex galay ayaynu maanta diyaar u nahay. Arday waliba wixii uu keensaday ayaynu ku jisaysiinaynaa. waxa kaloo haddaba aad iyo aad ugu sheegaya ardayda waalidiinta in uu ku mahadsan yahay wasiirka waxbarashadu joojistii uu joojiyey qishka iyo khiyaamada lagula kacayo imtixaanaadka. sababta waxa weeyaan waxay faa'iido u tahay ardayda wax ka baranaysa dugsiyada oo maskaxdooda u raadinaya in ay casharadii loo dhigay iyo wixii la baray ay si dhiibliya u akhriyaan oo ay kaga faa'iidaystaan. iyo farxadba mudan u salaamaya waalidka dugsiga hoose dhexe ee Quraadheer. ardayda wax ka barata dugsigan aynu maanta fadhino ee Quraadheer waxa kaloon salaamaya dhammaan macallimiinta oo aan afkooda ku hadlayo. dhinaca kale xafladdaasi waxaa ka hadlay Idris Maxamuud Cumar gudoomiyaha waxbarashada bariga magaalada Hargeysa. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay qorshaha wasaaradda waxbarashada ee tayeynta dugsiyada iyo ardayda lagu dhisayo aqoontooda isagoo ugu baaqay waalidiinta inay ka warhayaan waxbarashada ubadkooda. dhanka kalena hambaliyeeyay maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee Quraadheer isagoo ku amaanay kaalinta firfircoon ay mar walba ay ka galaan dhinaca waxbarashada. waxa wasaaradda waxbarashada ka go'an sanadka inay tayeyso waxbarashadii dugsiyada. waxaa kaloo ka go'an wasaaradda waxbarashada inay la dagaalanto wixii loolan jiray qishka innagu maynaan lahayn dhaqan waxaynu ka xishoon jirnay bay ahayd. ilmuhu wuxuu ku meelmari jiray aqoontiisa. ugu dambeyntii waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay sanad dugsiyeedka waa Mawlid Maxamed Siciid.